واي سؤال شاسي وحوي حاجة اسمحوا إنه ويديو ويروحان مغلى شيخو أما إذا عاد كشيء ما فيديو يو يأتي فيه إن تريق قبل اللقبة قانت أي جيسة تقول يقان وحي جيسته تلكيد بالويدين يا لكن ننكي قبي يا عرورتي سلويدين ما يو سو سلامها انت أصلا مغلى انت ميات شاكتي واي وان كجوابينا horta anigu ma sheegi karo waxaan diintu sheegin haddaan sheego dee sax maaha waa qalad soomaad maqli jirin hebel waa wariye oo waxaas uu sii warinaya inagu kitaabku baynu ka warinayna marka shayga kitaabka ku jirana waa idin soo gaarsiinayna waa idin soo warinayna wixii aan kitaabka ku jirina inaga hadhan wadaad hadalkiisa cabiri karana ma doonayno ilaahay iyo rasuulku waxay noo sheegeen un baanu idin soo warinayna marka waxa muhiim ah inaad tiraahdo diintu maxay arinta ka sheegtay diintu maxay ka qabtaa waayo wadaadku wuxuu ka qabaa waa isla sidii un ha sax weey wad maasan waayo shariicadeenu waxay leedahay gabadhu marka ay qoon geysato waqtigii nabigana way dhacdayba nabiga waxa loo keenay xadiidkan idin soo qaado laba dumar ah ayaa nin wada qabay dangalay soo ahaayeen way islaayeen mid baa dhagax qaadatayoo tii kale oo uur leh ayaa caloosha kaga dhufatay ila weligood bay soo dilayeen dadku dumarka la wada qabaana waa iska xayraan dumarka la wada qabana hawshoodu ma yara ee dangalooyinka tii uur kala hayd bay tii kale dhagax caloosha kaga dhufatay ilmihiina way dishay iyadiina way dishay ilmihii wuu soo dhacay isagoo bakhtiya gabadhiina way dhimatay marka nabigu gabadhii wax geysatay tolkeedii baa wuxuu ku yidhi ilmahan soo dhacay iyo gabadha dhimatayba bixiya laakiin ninkii qabay muu odhanin waxbaa lagugu leeyahay gabadhii la qabay wixii ay geysatay wuxuu yidhi ninka ciddii ay ka dhalatay dhiigga ha bixiso soo wax la fahmi kara maaha waxa soo raacay markaa tii iyada la dilay dhaxalkeedii balaadaba fiirsi magteedii wuxuu yidhi tan la dilay magteedii waxa qaadanaya ninkeedii iyo carruurteedii tan la dilay marka meeshii waxaa ka soo baxay gabadhii haddii dhiig ay gashana tolkeed baa bixinaya haddii mag laga qaadanayana ninkeedii iyo carruurteedii baa qaadanaya marka arrintii waa arrin cilmi ku salaysane arrin caqli ku salaysan maaha marka waxa dhinaca laga eegayaa waxa weeye arrintan magtu waa dhaxal oo marka mesela gabadhii dhiiggeedii la soo qaado waa dhaxal oo dahabkeedii ay ka tagtay iyo maryaheedii waxaasuu la mid yahay marka dhaxalkiina dee ninkeedii carruurteedii baa qaadanaya marka dhiiggiina waxaa bixinaya tolkeedna ma odhan karaan waar gabadhan haddaanaan dhaxalkeedii qaadanayn maxaanu dhiiggeeda u bixinaynaa ama haddaanu dhiiggeedii bixinayna dee dhaxalkeedana aan qaadanno laakiin sharcigun baynu raacaynaa arrintaana waxaa keenaya labadii dee gabadhii baa labay u dhaxaysaayoo qoladii qabtay iyo qoladii kale u dhaxaysaa waa qof markaa arrinkeedu u badan yahay xagga taranku u badan yahay ilaahay baa inoo sakhiray subxaanahu wa tacaala su-aashaa waa la fahmaan filaya su-aal kale sheekhaasina su-aal buu hayaa waayo halkaagaa iska jooga anaa sii sheegaya wad sheekhanaa kaa soo horreeyey kabir baa le weyne ayaanu doonaynaa inaad raadisaan oo dadka ka sintaan waa su-aal iyo soo jeedin isku jira weeyaan yarsu xaajigu wuxuu ina su'aalay dee wadaadada iskhilaafsan macnahoodu waa maxay intaasay ku soo ururaysaa waan filaya macnahoodu waxa weeye inay wadaadadu iskhilaafaan sax maaha waa qalad weeye waayo ummaddu hormuud bay leedahay hormuudkana waxa weeye madaxda iyo culimmada hadday hagaagaan ummadduna way hagaagaysaa madaxda iyo culimmadu hadday qalloocdaanna oo ama ay dagaalamaan ama ay iskhilaafaanna waa ceeb ummaddii kalena ma midoobayso geelii duqdu durdurisay aarankiina wuu ka darayaa marka culimmadu haddaannu iskhilaafno waa ku qaldanna waxaana la yidhaahdaa al-insaanu ibnu bay'atihi bani aadamku waxa uu ku abtirsadaa un cidduu ka soo jeedo marka soomaalida markii ay fitna dhex martay qabyaaladii dhex martay iyagu ay iskhilaafeen wadaadadiina way ku darmeen wadaadadiina khilaafkoodii baa gaadhay oo malaha waxa wax ka soo gaadheen fiqitolkii kama janno galo marka cudurradii iyo duulduulkii
dad weynaha haystayba iyagiina wax ka soo gaadhay sidaa daraaddeed baa khilaafkii iyagiina gaadhay laakiin waxaynu leennahay waa saxantihiin odhan mayno waxaynu leennahay culimmadu ha isku duubnaadaan masaajidada ha ku wada tukadaan cilmiga ha kala faa'iidaystaan qofkii qaldan uu qaldami karaa ha loo naseexeeyo oo ha la yidhaahdo sheekh hebelow arrintaa iyo arrintaa waad ku qaldan tahay aayaddiina waa tan ama xadiiskii hadduu isagu wax tuso oo wax keenana lagula qanco in la isu dudana maaha in la kala tagana maaha maadaama wada islaam leeyahy qibladii loo wada tukanayo diin la wada wado sida saxda ahi waxa weeye in la ururo la midoobo ummaddana la wada badbaadiyo culimmadana saasaynu u sheegaynaa annaguna saasaannu u taagannahay qolo aannu firqadaannu la colnahay iyo qaar aannu fogaynaynaa toona ma jiree qof walba waa soo dhowaynaynaa ummaddana waxaannu leennahay xaqa gaadhsiintiisa aanu midowno sheekhaasaa soo raacaya waaya macnaha su'aal buu walaalkeenina weydiiyey su-aashaasi waxa weeye meesha waxaa laga isticmaalaa wax la yidhaahdo faal miyaa tidhi faal fal mise faal waa la faalinaya tusbixiya wixii noocaaha miya ama kitaab baa la furaya iyo islaam fooxisa falka iyo fooxinta iyo faalinta eeg waa fal iyo faalin iyo fooxa islaamaha shida falkuna waxa weeye waa sixirkii faalintuna waa tusbixii la ridayey saddexduba waa diin la'aan warma maqasheen saddexduba waa diin la'aan qofku markuu diin leeyahay diintu waxay u diidantahay sixirka oo sixirka diinteennu waxay ku sheegtay min akbari alkabaa'ir dunuubta u waaweyn qofaad disho iyo gaalnimada liiskoodu ku jira waxa sixirka la idhaahdaa qofka muslimka ahi inuu sixir u tago diintii nebi maxamed uu ka gaaloobay xadiidka saxiixay ku sugantay qofka rasuulka sala allahu calayhi wasallam waxa uu tilmaamayaa inuu diintii nebi maxamed keenay ka gaaloobay qofka sixirla u tagaa ama faaliye falka waxaa la yidhaha falka waa kaa weeye waa sixirkii waa xaaraan gabadhu inay ninkeeda fasho ama ummad fasho ama faaliye u tagto ama qofkuba inuu faaliye iyo sixirla u tago diinta islaamka wuu kaga baxaya ma fahamteentaa falka waxaa la yidhaa faalinta waa tusbixiyoo la ridoo la yidhaa arrinkaasi sidaasuu noqonaya arrinkaasina sidaasuu noqonaya mustaqbalka laga sheekeeyo iyana way soo raacaysa waa mamnuuc curaafka kaahinka mustaqbalka ilaahay baa og caalimu alghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axadan ilaa man irtadaa min rasuul waxa qaybka ku maqan ilaahay baa ogsoon addoonku u sheegi karaana waa nebi maxamed ka dambeeyena ma jiro mustaqbalkaaga aamin mustaqbalka aamin oo ilaahay ku kalsoonow soo sax maaha kaasina waa kaa islaantuna dee fooxa haddii la shidayo aqalkaa lagu udgoonaynaya waa sida unsigoo kale laakiin foox rawxaan laga dhex eegayo oo laleeyahay qiiqii xaggaas u kacay iyo rawxaan baa ka muuqata iyo waxaasi waxa weeye iyaduna jin iyo jaan iyo qofkoo jiman kaashanaya weeye qofkaasina wuu madoobaanaya siduu sidaa u wadaa unbaad arkaysa isagoo sii gaabanaya oo sii libdhaya oo sii madoobaanaya ilaan waa macsiyu ku jiraa dembi buu ku jiraaye in jimanka la kaashaday iyo rawxaantuna waa xaaraan nebi maxamed baa isticmaali waayey cid kalena daa innagana insi baa layna yidhaahdaa iyagana jin baa la yidhaa sidaa ilaahay inooga qariyey miyaynu guursan karnaa iyaga xabad jinahoo aanad arkaynin ninow miyaad guursan kartaa ama inan jin ah miyay gabadha guursan kartaa dee lama shaqaysan karno si aynaan isu guursan karin ma wada shaqaysan karno haddii haddaad tidhaa waan la shaqaysanayna dariiqo xaaraanaad kula shaqaysanaysa taana iskaga hadha cidda arrintaa ku jirtana waxaynu leenahay intaydaan dhimannin ilaahay uga toobadkeena dadka u tagana waxaynu leennahay intii hore ka toobadkeena dibna ha ugu noqonnina su'aalaha dumarkaynu furaynaa waxay tiri ninkaygu hadduu diinta caayo mehermeehaya waaya lama soo raacaya waa qodob milyan Soomaaliland haystaysa ka maxaa ka go'aya labadaa ii kaadi ninkaygu hadduu diinta caayo ma ka furmaya haa waad ka furmaysa marka waa in culimada loo tagaa dib loo meheriyaa gabadha isaguna dib u ashaahataa u soo islaamaa waayo diinta islaamku ku qabay gabadha hadduu tii caayo ma joogaysaa xadhiggu wuxuu ugu xidhnaa diinta islaamka oo isugu mehersanaayeen maqas buu ku jaray xadhiggii soomuu gooyn markaa diinta oo la caayo ilaahay oo la caayo rasuulka oo la caayo malaa'igta oo la caayo diinta waa lagaga baxaya xaaskuna way furmaysa marka xalku waxa weeye inuu isagu dib u ashahaato culimadana loo tago reerkiina loo soo celiyo su-aasha labaad sheegaysa milyan Soomaaliland maxaa saka ka baxaya 25,000 baa ka baxaya 25,000 oo shilin baad bixinaysa
waaye su-aasha saddexaad waaye waxay tiri mayro sadiiqoo caloosha ku dhintay wanqal ma leeyahay ta kale irbadda kale korinta sharcigu ma ogol yahay labadaas su-aalood waa arrimaha bulshada ay la xidhiidhaan iyo qoyska iyo xaaska waxaa ilmo yaroo caloosha ku dhintay ma loo walqalayaa haddii uu nolol ku soo dhashay waa loo walqalayaa waana loo magac bixinayaa hadduu bakti ku soo dhashayna walqal iyo magac bixintoona ma leh waa warcad soo maaha haddii uu nolol ku soo dhashay waa loo walqalayaa magac baa loo bixinayaa waa lagu tukanayaa haddii laakiin uu bakti ku soo dhashay walqalna ma laha magacna ma laha lagumana tukanayo ee waa la maydhayaa kafanna waa lagu xidhayaa waana la aasayaa laakiin salaad ma leh mar hadduu bakti ku soo dhashay marka nolosha iyo baktiga kala duwan su-aasheeda kale waxa weeyaan ilmaha ama iraabkan la qaadanaya ee kala korinta ma bannaan yihiin haa way bannaan yihiin haddii aanay hooyada dhibaato ku keenayn haddii hooyada ay dhabar furan ku keenayaan ama neerfasyada iyo acsaabteeda iyo xanuun jidhka ay ku keenayaan dee laa darara walaa diraara buu nebigu yidhi ummadda yaan la dhibin qofkuna yaanu isdhibin marka dhibkaa ay keenayaan daraaddeed mamnuuc bay u noqonayaan hadday laakiin munaasib ku noqonayso caafimaad ahaan ay waafaqayso way ku kala fogayn kartaa iraabka iyo kiniinka ay isticmaalayso markay u baahato ee dee matal carruurtii isla yaryaraato ama iyadee xanuun uu ku yimaado oo nafaqadarra ay ku dhacdo waxaase ka sii dhib yar oo ka sii wanaagsan in naaska la jaqsiiyo sidii waalidkeennii odayaashii iyo islaamihii ay u kala fogayn jireen soo garan maysid ee laba sanaynu kala waaweynaynay sidii oo kale laakiin haddii markiiba ay ka daysa naaska hawshan kala imanaysa markaa jaqsiinta ha lagu dadaalo si irbadaha iyo kiniinada iyo waxyaabahan faranjigu inoo keenay looga maarmi karo su-aalaha kale soo waxay leedahay ari baan berbere u diraa 10 kun baan saaraa oo laana ninka ii iibinayana uma sheego waxay soo saar baa yidhaa sharcigu ma ogolyahay ku yar celi halkaa waxay tiri ari baan berbere u diraa waaye 10 kun oo aanan qiimo leega sii ahayn baan ka sii sheegay ay yidhahdaa 10 kaasna way la socdaan ninka ii iibinaya uma sheego suu lacag kale igu soo saaro sharcigu ma ogolyahay su-aashaas waxa weeyaan xoolaan iibiyaa nin baan u diraa markaa wixii la iga siiyey waxaan ahayn baan u sheegaa oo siyaadan saaraa bal ka warran dee wixii la isla ogayay baa xalaala laakiin qofka sicirkii lagaa siiye u sheeg waxaan lagaa siinin inaad u sheegtaana waa been iyo khiyaamo war adhigu intaasuu igu joogaa wixii aad isiinaysee dilaala keen ama waxaasuu igu joogaa waxaa ii soo sii waxa la yidhaahda beenta iyo khiyaamadu ragga iyo dumarka iyo baacmushtariga meel walba xaaraan bay tahy xaqiiqadunbaa laga turjumayaa sidaasaa maaragtay sharcigeennu sheegayaa wax su-aaloo kale waaye ku dhaqso halkaagaa ka hadalo weydii waa ku maqlayaba su-aashaasii walaalkeenina weydiiyey dhegaysta laguma qoslo su-aalaha su-aaluhu waxa weeyaan waxaanu doonaynaa inaannu idiin faa'iidayno qofku mushkiladda haysata uu ka baxo allabariga la samaynayo ma xalaal baa mise waa xaaraan allabarigu hadduu yahay axankii iyo fidihii waynu isla garanaynaa soo maaha xalaal maaha laakiin haddii uu yahay ducadii la samaynayay wakhti kasta oo aan ku xidhnayn fidihii iyo axankii aan ahayn ee waalidka loo niyoonayo ajriga inuu ilaahay gaadhsiiyo waa sax weeye maantaad qali kartaa 5 cisho kadib baad qali kartaa casuumad baad samaynaysaa shaah baad shubaysaa timir baad bixinaysaa lacag baad bixinaysaa waqaf baad masaajidka gelinaysaa cunno iyo dhismo mid kastaba ha ahaato mar haddaanay wakhti ku xidhnayn tasaddaq wadbax can abiik weeye waa la sadaqaysanaya laakiin waxaa la diidayaa uun tan ama fidaha ee 3 habeen ku qaydan ama sanadkiiba hal mar ah ee sida ciidoo kale wakhti mucayana leh taasaan jiraynin wakhtigii nebiga laakiin sadaqo wakhtigii la doono la samaynaya waa la bixin karaa dembigeenna allaha dhaafo kii waalidkeenna allaha dhaafo ka dambena allaha inaga dhowro haa xaaji waa su-aal kale ah soo kooba haa waaye allaha u naxariisto waaye meherkaa la cafiyey masaxbaa odaygaa halkaa fadhiya xaaji sheeg su-aashaada aan ku tixgelinay waa daaweyntee waa ku maqlaya haa waaye haye
laba su'aalood bay labadaa oday garcastiina weydiisay midi waxa weeyaan gabadha ninkeedii uu dhintay meher ay ku lahayd meherkaa isagaa miyay ka cafiyi karaysaa haa way cafiyi karaysaa qur-aanku ilaahay ku sheegay wa an tacfuu aqrabu litaqwa inaa cafidaan meherka ayaa alla ka cabsiga u dhow markaa inta ay gabadhu nooshahay ee isaguna uu nool yahay way ka cafiyi kartaa waxna way ka dayn kartaa waanu siin karaa markii uu dhintayna way ka cafiyi kartaa ajri aad u weyn bay leedahay ajri aad u weyn ayay weliba ku leedahay raggowna dumarka meherka siiya intaa nooshihiin wax naga daayana dhaha ama wada siiya laakiin geeridu yaan lala sugin su-aasha kale xaajiga kalena weydiiya waxa weeye hantida dadweynaha qof ma la siin karaa haddii sharciga loo maro haa sharciga haddii loo maro sharciguna wuxuu sheegayaa in horta ummaddu ka maaranta waxan isla markaana si xora loo naadiyo oo laydhaa war waxan yaa iibsanaya oo la baafiyo oo dadku ay u siman yihiin oo qiimihiisii lagu iibin karo laakiin haddii wixii oon laga maarmin ama cid gaara lagu dheefinayo dee taasi waa xaaraan qof gaara baa la siinayaa ama qabyaalad baa lagu wadaa ama qiimihiisiiba laguma iibinayo ama ummaddiiyo u baahan baa la riixayaa dabada laga riixayaa taasi sax ma aha hantidaada goormaad iibisaa markaad ka maaranta soo maaha hantidaada adigu waxaad iibisaa markaad ka kaaftoonta soo maaha waxaad ku iibisaana qiimihii macquulka ahaa ee sixira suuq ahaa soo maaha sidaa hantidaada aad u iibinaysuunbaa ta ummaddana loo iibin karaya waayo su-aasha dumarka ee u dambaysa sheeg haa ku dhaqso waxay jiri berigii qaxoontigii la kala qixi doonaa qolo aan riya igaga tagtay waa la kala qaxo waan waayey iyana way tarmeen shareecaddu maxay ka qabtaa inaan waxa jira agoon baan ahay xoolo baabahay iga dhintay sakadiisoo kama bixiyo ta saddexaadna waxay jiri xaawiyo faaduma sitaadka waxa la yidhaha lacag ku soo dar sharcigu muxuu ka ogol yahay waayahay su-aasha hore waxa weeyaan wakhtigii intaan la kala qixin riyo baadiya baan hayay ama qof baa riya u hayay qofkiina waa la waayey maxaan ka yeelaynaa riyahaasi waa baadi qofkii lahaa yaboohi haddii aad weydo adiga iska intifaacsanaya oo waad iska qaadan karaysa waayo baadida rasuulku adhiga buu ka hadlayoo wuxuu idhi hiya laka aw liakhiika aw lidiibi ama waxa qaadanaya walaalkaabaad u haynaysaa ama adaa qaadanaya ama bahalkaa cunaya markaa bahalka ha uga tegina ama walaalkaa u hay ama adiguba intifaacso yaboohiyuun markaad qoladiisiiyo wax ku yaboohiso deegaankiisii aad weydo waad iska intifaacsan kartaa sekada agoonta waa laga bixinayaa xoolahooda sekada hadday dee sekagel yihiin weeye hadday heerkii sekada ku gaadheen waa laga bixinayaa ee agoonnimo lagagama daynaya dadka waalan iyo agoonta iyo xoolahoodu heerkii sekada hadday gaadheen sekada waa laga bixinayaa waa agoonnimo lagaga dayn maayo soo wax cad maaha waxaan la yidhaahdo sitaadka ama xaawiye faadumadu tolob muxuu yahay dee muxuu yahay marka la leeyahay sitaad baa la samaynaya ama xaawiye faadumo xaawo iyo faadumo waxay kaa mudan yihiin waa hooyooyinkeennii hore inaad u ducaysan laakiin dig iyo dam iyo durbaan iyo sanuunad la cuno kaagama baahna waxa weeyaan waa loo ducaynayaa ilaahay xaawo u dembi dhaaf ilaahay faadumo rasuul u dembi dhaaf ducadaasaa la wadaya laakiin dariiqada noocan ee dumarku ay sameeyaane ay isku imanayaane dee sitaadka la samaynaya ee waxaa la odhan karaa ma laha dee jibba jin baa jirta baa la odhan karaa oo dadku iyagoo jibbadii yar jin iyo ay ku jiraan ayaa noocan madaxa loo ruuxayaa loo tumanaya markaa dadku siday u cibaadaysanayaane ilaahay ugu dhowaanayaane ajri ku doonayaan waa sidii asxaabtii rasuulka iyo xaawaladii wakhtigii nebiga xaawaladii wakhtigii nebiguna xaawiya faadumo may samayn jirin faadumadii nebi maxamed uu dhalay markay joogtay weligeed xaawiya faadumo may samayna waxba ha ku xiiqinee salaadana tukada salaatuleylkana tukada diintana barta malcaamadana wax ka barta sadaqadana bixiya durbaanadaana iska daaya والسلام عليكم ورحمة الله وحان دعاء كسو ختمينا دعاء كسو ختمينا آمين لها دنبينا الله الناف كي والد كان الله الناف عرورتنا الله ينو بركي حاسسك الله ينو بركي odayaasha Allah inoo barakeeyo magaalada Allah inoo barakeeyo dalka iyo deegaanka iyo dunyada iyo diintaba Allah inoo barakeeyo cilmigana Allah inagu anfaco dad badan baa buko oo noo soo duceeyay leeyahay cudurka caafimaad Allah ugu bedelo qof wal oo bukaba cudurkiisa caafimaad Allah ugu bedelo annagana noo soo duceeyay idinkana waa idin ducaynaynaa cudurka Allah inaga dulqaado
intii muraad leh ee muraadkoodu aanu dembi ahayn ilaahay muraadkoodaasoon macsi ahayn allaha siiyo kii xaas doonaya kii xaasku ka xumaaday kii carruur la'aani hayso kii caydhi hayso intaba ilaahay ha u farajado intaba faraj khayr qaba allaha siiyo bahalkana xoolaha ilaahay nooga nabadgeliyo wax qaniinka hoosena allaha inaga dulqaado qardoofada dhexdeedana allaha inaga daaweeyo qardoofada iyo qaniiyada iyo xurgufta iyo xadaafiirta dhexdeennana allaha inaga dulqaado carruurtaa yareerina waxbaraynana kuwii inoo soo duceeya inoo aydha allaha ka dhigo qur'aankana innaga iyo iyagaba quluubteenna allaha u furo ilaahay kuwii culimo allaha ka soo saaro madaxdii fiicnayd iyo ooriyihii iyo hooyooyinkii fiicnaa allaha ka soo saaro akhri iftiinkaba sirhon allahayna waafajiyo waalid baa inaga horreeyey inagu soo tabcay oo ina dhalay allaha u naxariisto waynuu ducaynaynaa waalidkaa iyo waalidiintoodii iyo ummadda islaamkaba dembigooda allaha dhaafo keennana allaha dhaafo iyagana allaha u naxariisto halkay tegeen markaynu tagna allaha inoo wada naxariisto dadka muslimiinta ee caalamka ku dhibbanna waynuu ducaynaynaa ilaahay baynuu baryaynaa faraj allaha siiyo cadowga garaacaya allaha ka dulqaado nasri allaha ka siiyo kuwa yuhuuddu garaacaysa iyo kuway nasaaradu garaacaysa iyo kuwa la dulmiyaya kuwa barooranayana allaha u hiiliyo ilaahay nasrigiisa ha siiyo ducadaynuu ducaynaynana ilaahay ajriya abaal allaha inaga siiyo kuwii quluubtooda ay safaysantahay allaha inaga dhigo kuwii quluubtooda ay hagaagsantahay allaha inaga dhigo camalkeennana allaha hagaajiyo cibaadadeennana allaha suubiyo cadiyaddu allayna siiyeyna allaha inoo barakeeyo calaf khayr qabo adduun iyo aakhirana allahayna siiyo sharka cadowga iyo shaydaanka iyo ehelkiisana ishooda allahaynaga jeediyo sixirka iyo falka iyo jinka iyo shayaadiintana allahaynaga fogeeyo wasala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi wasallam subxaana rabbik